السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا وسلامتين ملكسو دون دافيد كجوكتان كسو دوada barnaamijkeena caawa iyo ciyaaraha inta badan barnaamijkan waxaan ku garfeynaa qodobada newska waqti xadarkaastaan kubadda cagta hadee noqoto arrimaha officialka ciyaartooyda kala wareega sidoo kale waxyaabaha ugu xiisaha badan markaas taagana aan ku soo qaadanaa sidoo kale barnaamijkan wuxuu noqon doonaa barnaamijyada joogtada janaalkeena ka bixi doona sidoo kale habeen walba ay kaga bagan doontaan sidoo kale qodobada barnaamijka ku maqli doontaan waxaa ka mid ninka lagu magacaabo Zlatan Ibrahimovic ayaa qalinka ku duugay hal sano heshiis kooxda AC Milan ay u saxiixay sidoo kale ninka lagu magacaabana Erik ten Hag macalinka Man United saaxiibada qiimaha badan waxyaabo badan ayuu gorfay maadaama ninka lagu magacaabo Christian Eriksen waxyaabaha uu ka filayo sidoo kale ambitionka mahamiga uu ka qabana uu ka hadlay sidoo kale ninka lagu magacaabo Dybala oo qorka u saaran oo ku biiro kooxda kubadda cagta Roma sidoo kale ninka lagu magacaabo Lingard ayaa rajoon doona mustaqbalkiisa inuu go'aan ka gaaro sidoo kale ninka lagu magacaabo Delight arintiisana oo isku soo dhamaatay qodobadaas iyo qodobo kale ay barnaamijkeena ku maqli doontaan intaan guda galin barnaamijka hadda janaalka cusub tahay subscribe noo saar sidoo kale loobin ina muuqaalka like noo saarto aan ku bilaawna qodobkan kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa ninka lagu magacaabo Zlatan Ibrahimovic waxay siisay hal sano oo qandaraas ah sidoo kale qandaraaskan wuxuu ku eegay June 2023 ayuu ku eegay sidoo kale Zlatan waxa la rajayn doonaa bisha October ee sanadkan inuu jirsan doono 41 sano sida daraadeed ninkan hal sano ay kooxda AC Milan siisay waxyaabaha kale aan soo qaadan karno waxa ka mid West Ham ayaa qarka u saar inay qaadateen ninka lagu magacaabo Armando Broja sidoo kale waxay ka soo qaadan doontaa kooxda kubadda cagta Chelsea sida daraadeed waxa la rajayn doonaa saacadaha nagu fadla heshiiskaana in soo official u dhawaaq sidoo kale Broja uu noqdo ciyaaryahan ka tirsan kooxda kubadda cagta West Ham sidoo kale ninka lagu magacaabo Dybala arintiisa oo isku soo dhamaatay saaxiibada ninkan medical test ama tijaabada caafimaad waxa la rajayn doonaa saacadaha nagu soo fadla kooxda Roma inuu u maro sidoo kale heshiis 3 sano qalinka dug sidoo kale heshiiskan wuxuu gaari doonaa June 2025 sida daraadeed saacadaha nagu soo fadla ayuu ninkan tijaabada caafimaad ka gudbi doonaa waxa laga yaabaa inta barnaamijka dhageysanaysiinba ama daawanaysiinba inuu ninkan tijaabada caafimaad kooxda kubadda cagta Roma u mara waxyaabaha kale soo qaadan karno waxa ka mid ninka lagu magacaabo Lingard ayaa rajoon doona saaxiibada qiimaha ban saacadaha nagu soo fadle inuu mustaqbalkiisa go'aan ka gaaro ninkan sidaan ka warqabna heshiiska kula jiro kooxda kubadda cagta Manchester uu ka dhacay sidoo kale ninkan wuxuu noqday ciyaaryahan free sidoo kale kooxda raba ayuu ku biiri doonaa sidoo kale wararka waxay intaas ku dareen ninkan waxa la soo xariin koox ka dhisan gudaha Sacuudi Carabiya sidoo kalena uu iska diiday maadaama ninkan uu wali rabo inuu baaqi ku aado qaaradda Yurub xitaa wuxuu rabaa ninkan EPL-ka inuusan ka tagin sidoo kale ninkan saaxiibada waxa wada xaajood kula jirto kooxda kubadda cagta West Ham sidoo kale waxa la rajayn doonaa ninkan inuu go'aan ka gaaro mustaqbalkiisa halku aadi doono maadaama saaxiibada bish August ama bisha noogu soo foodle oo bilaaban doona horyaalka Ingiriiska sida daraadeed waxa la rajayn doonaa ninkan mustaqbalkiisa inuu meel u dhaco sidoo kale ciwaanada kale aan soo qaadan karno waxa ka mid ah kooxda kubadda cagta Napoli ayaa markaan rabtay inay soo qaadato ninka lagu magacaabo Delevo sidoo kale ninkan wuxuu ka tirsan kooxda kubadda cagta Udinese sidoo kale ninkan saaxiibada kooxdiisa Udinese wuxuu ku rabtaa adduun lacageed gaaray 20 milyan laakiin Napoli ayaa rajo ka qabtay in ninkan ku soo qaato lacag gaarayso 16 milyan sida daraadeed kooxda Napoli wuxuu dhaqaaqday inay soo qaadato ninka lagu magacaabo Delevo sidoo kale waxyaabaha kale aan soo qaadan karna ciwaanada maanta taagan waxa ka mid ah ninka lagu magacaabo Conde saaxiibada ninkan future-kiisa ama mustaqbalkiisa weegan ku jirna ayuu dhici doonaa sidoo kale ninkan lagu magacaabo Jules Conde waxa kamid yahay kooxda kubadda cagta Sevilla sidoo kale daafac Faransiis oo qalbada dhexe ama center back ka dheela sidoo kale ninkan kooxaha ugu caansan qaaradda Yurub ayaa baadigoob ugu jiraan sidoo kooxaha kale ah Chelsea Barcelona warka jar wuxuu yahay ninkan saaxiibada wuxuu soo dhameeyay fasaxiisa haddana wuxuu ku soo laabtay kooxda kubadda cagta Sevilla sida daraadeed waxa la rajayn doonaa weegan gudihiisa arinta mustaqbalkiisa in dhinac u dhici doonta ciwaanada kale aan soo qaadan karno waxa ka mid ninka lagu magacaabo Zinchenko walle wuxuu noqday dhagax sidoo kale Arsenal asna waliba ismar laayin saaxiibada qiimaha badan kooxda kubadda cagta Arsenal iyo sidoo kale Man City way wada heshiin jimciye aan ka soo gudubno sidoo kale Man City waxa lagu wareejin doonaa adduun lacageed gaaray 30 milyan ayaa lagu wareejin doonaa laakiin arinta taagan waxay tahay Zinchenko iyo sidoo kale Arsenal ayaa ismar la maadaama arimaha qandaraaskiisa sidoo kale inta sano qaadana sidoo kale mushaaraadka waxyaabo badan ay isku fahmi lahayn hadii labadaas arin hadda ay saaxiibada qiimaha badan waxa leeyahay ninka lagu magacaabo Zinchenko saacadahan uu soo fadlo wuxuu noqon doonaa ciyaaryahan ka tirsan kooxda kubadda cagta Arsenal markaan waxaan soo qaadan doonaa ninka lagu magacaabo Erik ten Hag oo ah macalinka Man United saaxiibada ninkan waxyaabo badan ayuu garfay sidaan ka warqabnay Christian Eriksen wuxuu noqday ciyaaryahanka labaad ee Manchester United soo qaadatay xil ciyaareedkan saaxiibada qiimaha badan wali aan bilaabin sidoo kale go'aamisi kooxaha ay socotaan sidoo kale ciyaaryahanka saddexaad ay soo qaadatay Man United waa ninka lagu magacaabo Martinez haddaba ninka lagu magacaabo Erik ten Hag saaxiibada qiimaha badan ninka lagu magacaabo
Christian Eriksen waxyaabaha uu ka filaa waa waxyaabo weyn sidoo kale wuxuu yiri asigoo hadlay ninkan waxyaabo badan ayaan ka filaanay sidoo kale waxaan rajayn doonaa xil ciyaareedka cusub bilaaban doona inuu caawiyo markaan fiirino ninka lagu magacaabo Eriksen saaxiibada qiimaha badan ninkan hal sano ka hor waxa laga qabtay wadnaha sidoo kale koobkii loo yaqaan Euro 2020 markuu socdo sidoo kale ninkan kooxdiisa Inter Milan heshiiskiisa way kansashay sidoo kale asoo kooxlaan iska wuxuu ku biiray kooxda kubadda cagta Brentford sidoo kale Brentford ayaa 6 bilood qurux badan ay halkaas ku soo qaatay asigoo dhalay 11 gool ayuu dhalay wuxuu u ciyaaray 11 kulan ayuu ciyaaray sidoo kale saaxiibada hal gool ayuu dhalay xitaa 4 gool caawinna uu sameeyay 6 bilood oo halkaas ku sugnaa bandhigan caadihin ayuu sameeyay sidoo kale kooxda Brentford waxay rabtay inay ninkan heshiiskiisa ay joogto ka dhigtay xitaa waxa rabtay kooxdiisa hor Tottenham inay dib u soo ceshatay sidoo kalena Leicester ayadan waxay rabtay ninkan inay soo qaato laakiin ciyaaryahankan ayaa saaxiibada go'aan lama filan qaatay saddexdan naadin iska diiday kooxda kubadda cagta Man United ayuu ugu dambeyn ku biiray maadaama ninkan uu taas u soo wacay ninka lagu magacaabo Erik ten Hag sidoo kale project Man United ay u soo bandhigtana oo ku qanacay wuxuuna ka qaatay heshiis gaaraya 3 sano 30 jirka oo Denmark u dhashtana waxa la rajayn doonaa qadka dhexe ee Man United inuu waxyaabo badan ka bedeli doono sida daraaddeed ninka lagu magacaabo Erik ten Hag wuxuu yiri ninkan waxyaabaha aan ka filan ama ambition ama hamiga aan ka qabana uu sareeyo sidoo kale waxaan rajayn doonaa kooxda kubadda cagta inuu aad u caawiyo sidoo kale saaxiibada waxyaabaha hadda soo dhacan aan soo qaadan karno waxa kamid ah ninka lagu magacaabo Dele arintiisa waa isku soo dhamaatay sida hadda Fabrizio Romano oo soo daawacay maadaama saaxiibada qiimaha badan la yiri kooxda kubadda cagta Juventus lacagta lagu wareejiyay 70 milyan way aqbashwayna qaadatay sidoo kale saaxiibada waxa la rajayn doonaa ninka lagu magacaabo Dele saacadaha nagu soo foodlay inuu soo dolo doono sidoo kale gudaha Jarmalka oo soo gaari doono sidoo kale halkaasna uu tijaabada caafimaad oo ku mar doono sidoo kale heshiiska kooxdana uu ku biiri doono Bayern Munich saaxiibada uu dhameystiri doono ninkan waxa shaac laga qaaday heshiis gaara jun 2007 ayuu qalinka duuga doona sida daraaddeed saacadaha nagu soo fadlay ninka arintiisana waa isku soo dhamaan doontaa sida hadda Fabrizio Romano oo soo daawacayo bal markaan saaxiibada qiimaha badan waxaan isla fiirin doonaa El Clasico xil ciyaareedkan wuxuu noqon doonaa xil ciyaareedka ugu xiisaha badan dhaha lagu hayn doono maadaama labadan hit machine-ka saaxiibada qiimaha badan ninka lagu magacaabo Benzema ka tirsan kooxda kubadda cagta Real Madrid sidoo kale Barcelona sidaan ka warqabna hadda waxay soo qaadatay wiilka lagu magacaabo Lewandowski oo kamid ah saaxiibada qiimaha badan weeraryahanada caalamka ugu tayada wanaagsan sidoo kale kooxaha qaaradda Yurub ugu caansan ay baadagoob ugu jireen sida kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa baadagoob ugu jirta laakiin ninkan wuxuu doortay ciyaarista dhankaasi La Liga gudaha Spain sida daraaddeed hadda waxa leeyahay El Clasico xamaasadii ayaa soo laaban doonta maadaama labadan saaxiibada qiimaha badan qaaradda Yurub loogu cabsi badan yahay hadda iska hor iman doona sidoo kale xil ciyaareedkan sidoo kale El Clasico labada kooxood ciyaari doonaan indhaha ayaa lagu han doonaa doo saaxiibad maxaa ka leeyahay ninka lagu magacaabo Lewandowski ma noqon doona dahabi ay hadda Barcelona gacanta ku soo dhigtay aragtida comment nagu biiri wadku ma sintiin saaxiibada daash adawtan muuqaalka halkaas nagu dhan barnaamijkeena caawa iyo ciyaaraha sidoo kale barnaamijka wuxuu noqon doonaa barnaamijyada joogtada channelkan ka bixi doona haween walba in halkan ku soo gudbin doona hadlayta markii kuugu soo boqon channelka subscribe noo saar sidoo kale loobin inaan muuqaalka like noo saarto aragtida comment nagu reeb hadda kamid saaxiibada hore noo joogin muuqaalka share saaxiib wanaagsan sidoo kale channelka ugu soo biran sidoo kale waxay idin ka codsanaa inta caawina 500 subscribe na gaarsiisan taasna dhiirigelin inoo noqon doonto aragtida comment nagu reeb sidoo kale loobin inaan muuqaalka like noo saarto انت برنامج مدكو كل منو امان الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.